hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ergo wuxuu u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib culays dhowr jiha ah oo soo wajahay. Haddaba xog la hubo iyo faahfaahin arrintan ku saabsan ayaa halkan idinkula wadaagaya. Hogaamiyaha maamul goboleedka la yiraahdo Somaliland ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cirro oo bilaabay mar kale in uu mashquuliyo shacabka iyo sawirro been abuur ah iyo qoraallo la isku dhafay oo saacadihii la soo dhaafay lagu faafiyay baraha bulshada. Sidee wax u jiraan mowduucyadaas oo faahfaahsan ayaa halkan idinkula wadaagaya. Soo dhawaada haddii aad nagala socotaan barteena YouTube subscribe inoo saar, haddii aad nagala socoto barteena Facebookna follow soo dheh, isla barteena TikTokna ha moogaanin. Soo dhawaada. Waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya. Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland la yiraahdo ee Soomaaliya ayaa waxa xoga aan helnay ay sheegayaan in uu ergo u dirayo dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada Villa Soomaaliya. Odayaashan oo maalmihii dambe kulamo kula lahaa gurigiisa gaarka ah kadib culays ka soo wajahay dhinaca iyo villada maamulka Puntland ayaa lagu jeexjeexay in ugu dambeyntii Dani laga ergeeyo oo loo tago madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Soomaaliya iyo guud ahaan xildhibaanada ku matala maamulka Puntland ee magaalada Muqdisho ku wada sugan. Haddaba ujeedadu maxay tahay? Maxaa Saciid Dani loogu ergeynayaa? Muxuu yahay culeysyada soo wajahay ayaa durbadiiba isweydiinaysa. Saciid Dani waxa uu aaminsanaa in uu yahay midka keliya ee maamuli kara Puntland siyaasad ahaan, awood ahaan, dhaqaale ahaan ka soo horjeedsan kara dowladda federaalka ee Soomaaliya. Laakiin waxay wax kasta u cadaadeen markii shacabka, odayaasha dhaqanka, ciidamadii iyo guud ahaanba dhinacyadii siyaasadda ee garbihiisa ku jiray ay mar qura ka wada siibteen. Dani ayaa banaan cidla ah ku soo dhacay, waxaana laga raacay ayaa la yiri kadib markii qoraal jees ah uu soo saaray kuna yiri Imaaraadka waxay sii joogayaan gudaha deegaanada Puntland, gaar ahaan dekedda Boosaaso iyo garoonka intaba. Laakiin dowladda Soomaaliya oo aan dheg jalaq u siinin jawaabna ka bixin arrintaasi ayaa hore u sii waday tallaabooyinka ceerinta Imaaraadka, waxayna kaliftay in maalin cad la quusiyo Dani oo Imaaraadkii uu bilaabo in uu saadkii ciidan iyo sidoo kale agabkiisii uu qaar ka mid ah ka saaro dekedda iyo garoonka diyaaradaha Boosaaso intaba. Haddaba waxaa meesha uga cadaatay in dhinacyadii u sacabatumayay oo siyaasiyiinta qaar ay ku jireen ee lahaa Dani waa nin geesi ah, waa ninkii yiri Imaaraad kama baxayaan deegaanada Puntland, garbihiisii ay ka wada baxeen ayuu waagii ku baryay, wuxuuna u yeeray si degdeg ah odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin, wuxuuna ka dalbaday in laba fariin laga gaarsiiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha, guddoonka baarlamaanka laga gaarsiiyo, kuwaas oo kala ah in uu ka xun yahay wixii qaladaad ah ee ka dhacay intii uu joogay xarunta madaxtooyada ee maamul goboleedka Puntland, iyo sidoo kale isor istaagii beenaadka ahaa isku dayay oo uu ku sheegayay in Imaaraad dowladda Soomaaliya aysan ka saari karin deegaanadaasi. Waxaana la tabinayaa in odayaashaasi maalmaha soo socda ay dhaqaaqi doonaan, gaarina doonaan magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay madaxweynaha Soomaaliya ugu sheegaan in ay erge ka yihiin hogaamiyaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani. Haddaba Dani waxaa la yiri quus ayaa xilligan laga muujinaya xaaladiisa siyaasadeed, wuxuuna ku dhow yahay in uu siyaasadda guud ahaanba isaga baxo haddii dowladda Soomaaliya arrintan ay ku qanci weyso oo ay dalbato in tafaasiilaad dheeri ah uu bixiyo Dani iyo in uu warbaahinta la hadlo ama shuruudo kale ay ku xirto. Haddaba waa arki doonaa halka ay wax ku dhamaadaan. Deegaanada Somaliland ee Soomaaliya hoos taga, gaar ahaan magaalada Hargeysa oo ah caasimadda labaadna, waxaa markaa laga bilaabay in shacabka lagu hordisiiyo in aqoonsi ay helayaan oo uu ku hoolan yahay Cabdiraxmaan Cirro oo ilmihiisiiba kala baxay magaalada Hargeysa isla markaana geystay qurbaha. Waxa uuna dareemay in xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya weli
ay tahay mid marka laga hadlayo deegaanada Somaliland aan fadhin aqoonsigii shacabku u sheegayna ay weli saldhigan oo ay dowladda Soomaaliya cagta ku dhufatay oo aysan waqtigan jirin dowlad kale oo aqoonsi ay ka heli karaan iyo cid aqoonsan iyo in adduunkii oo dhan laga soo wada xiray loogana soo xiray shuruuc caalami ah oo aan marnaba la gudbi karin. marka laga hadlayo deegaanada Somaliland waxaa la leeyahay waxa uu bilaabay Ciro inuu caruurta been u sheego dhalinyarada jilbeesan been u sheego oo uu yiraahdo waxa idin soo wadaa aqoonsi taas oo ah mid aan waxba ka jirin. saacadii la soo dhaafay kooxdiisa propagandada waxay bilaabeen in ay qoraallo iyo sawiro been abuur ah ku faafiyaan baraha bulshada laakiin sheekada la yaab kale waxay tahay markii nin laga filayay in uu war weyn soo jeedin doono uu isku soo sawiray meel ay ku shirayeen qaar ka mid ah rag siyaasiyiin ah iyo rag madax ah laakiin uu ka soo qaatay in uu la kulmay wiil uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka taas oo ceeb iyo fadeexad lagu tilmaamay. haddaba Ciro waxa la filayaa soo kale ay leeyahay haddii arrintan ay shacabku ku fahmaan inuu iscasilo isla markaana si toos ah u hoostago madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Soomaaliya. waxaa meesha ka baxay arrintii gool isu taaga ee beenta ahaa waxaa meesha ka baxay arrintii 30 sano lagu seexin jiray dhalinyarada Soomaaliyeed ee iska jilbeysan oo loo sheegay in ay leeyihiin dowlad la yiraahdo Somaliland. haddaba warbixinadaas ayaa ugu waaweynaa oo aan halkan idinkula wadaagayay haddii uu idin soo gaarayna sii gudbiya oo sii faafiya muuqaaladeena. waxaan ka hadlayaa inta wadaniyiinta ah oo daljaceelku uu ku jiro kama hadlaayo inta goon isu taag ka shaqeynaysa inta gobol ku jilbeysan kama hadlaayo waxaan ka hadlayaa inta wadaniyiinta ah.